السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوادا ولا ليال جنكيني واحد بكريبتو ما انت 10 aad muhiim inay haynaa oo beginner ah insha Allah taas aynu eegi doono dhowr qodob oo walaalaha beginnerska insha Allah ka saacidi doona chart analysis ka haday tahay ba akhrisada chart ka loo sameeyo taas oo insha Allah waxyaabo yar oo kooban oo basic ah inii soo koobay insha Allah aynu tanaynu kaga dhigano insha Allah taxane oo beginner ah kadibna insha Allah intermediate iyo expert waynu u gudbay doonaa soo dhawaada part 1 ka hadaynu bilowno waxaan kaga hadlaynaa insha Allah candlestick-ka iyo sidii uu eegyihiin amba shamacyada buyga iyo sell-ka kala ah waxa ka turjumayaan ulahan dhaadheer ku dhex jira waxay kala yihiin halka ka furmaan halka ka xidhmaan labada dhinacba insha Allah waynu eegi doonaa suuqu markuu bullish yahay amba uu buy u yahay candle-ka cagaaran ee green ka baynu arkaynaa usha dhexda ku jirtaana waxa loo yaqaan wick ayaa la yiraahdaa jirkan buuxa candlestick-kana waxa loo yaqaan candle body waa jirkii candle-ka green-ka ah amba cagaaran wuxuu ka xidhmaa dusha sare hoosna ka furmaa week-kan aynu aragno high ugu sareeyo waa halkan amba meesha ugu sareysay price-ka lagu soo celiyay weeyaan hoosna waa halka ka furmay waa halkii price-ka lagu soo bushgareeyay kadibna halkan ka bilaabmay price-ku tusaale hadaynu qaadano oo nambaradana insha Allah inii turjumi doono wax kale yihiin مثلا coin body markaad gashay amba share amba stock amba forex مثلا waxaad ka soo iibsatay markay maraysay 5 amba 5 candle kaas oo dhan wuxuu socday adigu ilaa $2 hadaynu qiimaha $2 aan ku dhigno for example ilaa uu $2 u gaadhayay amba $2 ay ku kordhiyeen dusha sare ay ku xidhmay oo 7 ay u gaadhay dhinacan kalena hadaynu eegno waxa weeye candle bearish ah amba markuu suuqu uu casaan u yahay amba suuqa la iibinayo candlestick-ka dushaasu ka soo furmaa ay open ku qoran tahay high ugu dambeeyay uu price-kaasi u gaadhanay dusha tahay saynu aragno wick uu sheegayo boarding aad aragtaana waxa weeye candle-kii boarding-ga isla tusaalihii candle-ka green-ka hadaynu qaadano waxaynu aragnaa halkan in price-ku markuu ahaa 10 coin-ka laga soo celiyay oo candle-kaasi soconayay ilaa intuu $8 gaadhayay shayga ugu muhiimsan aad walaalayaal aan doonayna inaad ogaataan waxa weeye candlestick hadduu yahay candlestick green-ka ah hoosaasu ka furmaa dusha sarena uu ka xidhmaa candlestick cas dushaas waasuu ka furmaa hoosaan uu ka xidhmaa qaybta labaad haddaynu gudagalno walaalayaal waxaynu kaga hadli doonaa insha Allah wajiyada kala duwan ee uu suuqu sameeyo markuu suuqu uptrend u yahay uu bullish yahay oo suuqaas ay ku badan yihiin buyersku amba dadka iibsanaya coin-ka iyo markuu suuqu uu ranging u yahay uu dhinac u socdo iyo suuqu markuu hoos soo daadanayo oo loo yaqaano bearish market haddaynu ku bilowno qaybta bullishka ah waxaynu aragnaa coin-ka amba asset-ka amba wax walbo aad isleedahay trade garee waad ku dabaqi kartaa bullish market amba waxa loo yaqaano uptrend-ka waxaad ku garanaysaa price-kii meesha hoose laga soo celiyay oo meel support line amba sagxadda suuqa taasoo insha Allah casharada dambe advance-ka aynu ku tusi doono insha Allah sida area-ooyinka loo soo saaro support line-ka iyo resistance line-ka laakiin waxaad ogaataan price-ku markuu meel hoose uu ka soo noqdo inuu ka soo noqday meel support ah oo markaa haddaynu bullish market-ka aynu dhex galno aynu arkayno price-kii hoostaas laga soo kor buu kacay hadana nasasho yar buu yara galay hadana dib baa loo celiyay oo korkaas uu kacay hadana nasasho yar buu galay hadana price uu sii socday marka session sare uu gaaray hadda jeer marsuuqu bullish ka yahay waxa loo yaqaan higher high oo tusaale fudud hadayni soo qaado darajka imka markaad koraysid amba salaanka step-kiiba step ka sareeya marka step-ka sare hadda jeer waxa la yiraahdaa higher high step-ka hoose amba price markuu hoos soo noqdo nasashada yara galo waxa loo yaqaanaa higher low marka bullish market-ka hadda jeer waxa lagu gartaa higher high iyo higher low ayuu suuqu sameeyaa oo sida darajka kale ayuu socdaa suuqu oo mar korkaas loo kacaya wal hoos baa loo soo degaya kor baa loo kacaya hoos baa loo soo degaya taana insha Allah waxaan umaleeyaa inaad la fahanteen qaybta labaad ee market-ka ah waxa la yiraahdaa ranging suuqu markuu dusha ku soo noqdo amba resistance-ka laga soo celiyo amba saqafka waxa la yiraahdo waxaan umaleeyaa resistance iyo support aad iyo aad badan u qasheen marka resistance line-ku wuxuu ka dhigan yahay saqafka suuqa oo ka dhigan price-kii markuu cirka uu gaadhay dib loo soo celiyay hoosna ay ka dhigan tahay sagxadda oo marka hoosta laga soo celiyay price marka ranging market-ku waxa weeye suuqii oo مثلا hoosta imika ka soo kacay oo marna dusha tagaya marna hoosta imanaya oo uu ranging ku jiro aanu dhinacna u baxayn price oo marka waxa loo yaqaano resistance line-ka iyo support line-ka uu ku jiro suuqaasina waa dhexdhexaad ilaa uu dhinacun u baxayo suuqaasi lama galo waa la iska ilaaliyaa hadda jeer ranging market-kana waxaynu laba term oo la isticmaalo kale ayaa jira
oo correction ah. termka ugu horeeya waxaa la dhahdaa correction, amba halkaa priceku wuxuu ku qaadanayaa nasasho dheer. nasashadaasoo marmar coinanka qaar ka mid ah ay qaadato dhowr sannadood xitaa, oo ay tahay arrin laga digtoonaado oo had iyo jeer markuu dhinacuun uu priceku u kaco amba u jabsado loo raaco. qaybta labaadna waxaa magac kale loo yaqaano waxa weeye accumulation phase, oo dadka hantilayaasha ee lacagta badan haysta suuqa ayaa waxay sugaan marketku markuu rangegaasoo kale uu galo, ay adigu meelahan hoose inta ka urursadaan, kadibna lacagta meelaha adigu iskaga iibiya, amba hadduu breakout suuqu sameeyo sii raaco oo meelaha sare kasoo iibiya coinanka ay meelaha hoose kasoo qaateen. marka taana insha allah ranging marketka waxaan u malaynayaa inaad la fahanteen. qaybta ugu dambaysa oo ah bearish marketka, markuu suuqu soo daadanayo isla sidii waxa weeye darajkii oo laakiin cakas ah oo marka lasoo degaya ah, waxaanu sameeyaa wax loo yaqaano lower low iyo lower high, lower low iyo lower high. marka waxaad ku garanaysaa suuqa wuxuu sameeyaa dhaqaaq xoogan ayuu hoosta usoo sameeyaa, kadibna dushaasa loo celiyaa oo nasasho yar buu yaro galaa, haddana isla intii leeg ayaa marmar lasoo celiyaa, kadibna nasasho yar. adigu saasuu suuqaas u socdaa iluu meel u boorta uu helayo amba sagxada si uu bricekaasi dib uga soo laabto uu korkortaana u tago. saddexdaa face weeyaan uu suuq walba uu leeyahay walaalayaal, waxaana jeclay inaad la fahanteen. qaybta u dambaysa ee casharka basica waxaanu kaga hadlaynaa candlestickyada kala duwan, maadaama haddaynu garannay candlestick siduu u eegyahay, halku ka furmayo halku ka xidhmanayo aynu fahanay. candlestickyadan aad aragtaan qaybtana ugu muhiimsan oo saqafka marketka kasoo samaysanta amba saqafka suuqa, oo kuwaasoo lagu garto in suuqa dib loo soo celin doono amba seel uu suuqaasi u noqon doono. kuwan hoosena waxa weeye support lineka amba meesha hoose ayaa laga soo celiyaa ina dib loo soo celin doono oo buy u noqon doono suuqaasi. qaybta sare oo bearishka haddaynu bilowno, kan ugu horeeya waxaa la yidhahdaa bearish engulfing. dushaanu hadda jeer ka dhacaa, waana candlestickyada ka ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay, oo markaa candlekii greenka ahaa amba suuqii korkorka u socday ayaa candle cas oo weyn oo liqay asaga, sidaad aragtaanba candlekan cas inuu kan greenka uu ka weyn yahay, marka marketka dib hoos loogu soo celiyaa. waana candlestickyada ugu muhiimsan ee hadda jeer laga garto suuqu inuu dib u soo laaban doono iyo in kale. hadda jeer waxaana laga helaa meesha resistantka ah amba meesha suuqa ugu saraysay. candleka labaad waxaa la dhahdaa doji, oo asna saqafka ayuu ka samaysmaa, oo halkan buyerska iyo sellerska ayaa cidna aan awood lahayn, oo markaa candleki intuu ku furmo candle weyn oo ilaa meelaha taga, kadibna halkaa dhexe ku xidhma, taasoo ku tarjumaysa inay markaa buyerskii laga quwad weynaaday, markaa suuqa asna hoos loo soo diri doono. candleka saddexaad waxaa la dhahdaa bearish tweezers, amba waxa weeye laba candle oo isleeg oo dusha ayaguna ka samaysma, taasina waxaa ka turjumaysaa inuu suuqa dib loo soo celin doono asna. candlestickan ugu dambeeyanu hayna waxaa la dhahdaa shooting star, oo asna ka turjuma ina beariska amba quwadda buyerska ah ay soo badnaanayso, suuqa kusoo badnaanayso, kadibna bricekii dib loo soo celin doono. candlekaasoonu aragno inuu markii hore uu ahaa candle buuxa, markii dambe weekka amba stickkaasoo qurata lagu soo reebay oo halka hoose lagu xidhay briceka, taasoo ka turjumaysa inuu rejection uu yahay amba la soo diiday bricekaasi inuu areada uu ka soo laabtay inuu dhaafo, kadibna hoos loo soo celinayo. intan hoosena waa isla iyadii oo kale, oo qaybta support lineka amba support lineka hoose ee sagxadda ayaa lagu arki karaa. halkan waa bullish engulfing baa la dhahdaa, waa marka candle green ah uu liqo candle yaroo cas, kadibna suuqaasi uu buy isu bedelo. tusaalayaal badan baad ka arki kartaan chartyada. dib u racayna odhan lahaa chartyadiina walaalayaal, websiteka la yidhaahdo trading view isticmaala, amba binancekiina amba meelaha kala duwan aad garaafyada jeceshiin inaad ka samaysaan ayaad ka arki kartaa. kana waa isla doojigii aan dusha kusoo aragnay, ba asna meesha hoose ayuu ka samaysmaa, marka quwadda buyerska aba dhinaca hoose kala soo wareegta markuu support lineka uu joogo, kadibna suuqa korkor baa loo celiyaa. kana waa isla twin tweezers amba labadii candle isleekaa, oo sidaynuu sheegnay hore dhinaca sare hadduu ka samaysmo suuqa hoos baa loo soo celiyaa, dhinaca hoosena hadduu ka samaysmo ee sagxadda ah support lineka ah suuqaa dusha loo celiyaa oo suuqaasi buy buu isu bedelaa. ka ugu dambeeyanu haynana waxa weeye rejection amba hammer. hoostaa markuu ka samaysmo support line areaha markuu ka samayso candleka caynka u eeg ee lugta dheer la maaragta, kaa waxaa loo yaqaanaa marka uu support area uu ka samaysmo hammer. dhinacan sare markuu resistant lineka uu ka samaysmona waxaa loo yaqaanaa shooting star. taa ayaan lagu khalkhalin walaalayaal, adigu muhiimaddii waxa weeye waa inaad eegatid lugtaa dheeri dhinacee bay ujeedaa. hadday korkaa u jeedo waxay ka turjumaysaa in suuqa hoosta loo soo diri doono. hadday meel hoose ay ka samaysmatana oo dhowr candle oo isku xiga aad aragtid oo lugtaa dheer leh,
oo hoosta ka samaysmo waxaad dareemi kartaa ama waad ogaanaysaa in suuqa uu buy u tegayo. intaasan walaalayaal maanta inii haynay ay tahay casharadii basic ahaa. insha Allah aan filayo wixii intii ugu muhiimsanayd aan nii soo koobay, hadday ahaato faysyada kala duwan amba wejiyada kala duwan ee marketka ah, candlelada kala duwan ee suuqyada soo kala bedela, iyo candlestick aynu soo qaadanay tusaale yaroo fudud oo aynu garanay candlestick wuxuu ka turjumayo halku ka furmo iyo halku ka xidhmoba. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. intaynaan gabagabayn waxaanu noo odhan lahaa like iyo share iyo comment, videogan sii share gareeya ciddii u baahanaad isleediin waxbay insha Allah ka istifaidi doontaan u dira. khayr badan bay nii rajeeyey. assalaamu calaykum waraxmatullah.